السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب channel كينان كود مقال كينان كود محنو كجفاء يسنطلنا فرسمة عصب فرسمة ذا ساكو سامح إن أقف لينك قدرته لينك جاسات أراعينا سفرين قرالة إن كوا ساقات قف بدون سئناد قدرته إن باسورد إن فريا موبل كلا أما إن فرين خاص أو قف بدون سئناد سيجوني ولو ذاكتو haddaba waxay interestiga ah ee xiisaha sii gelinaya farsamadan ayaa waxay tahay qofka aad u diraysid linkiga marka uu linkiga furto fariinta aad u soo raacaysan oo akhristo mar labaad linkigaas haddii la isku dayo in la furo waqtigiisa uu dhacayo saas oo expire ku noqday oo waa linki aad ka dhigayso in hal mar la akhristo waxa ku jira haddaad doonaysid in qof wax sir ah aad u gudbiso aad halka u raadinayso qofkuna mar haddii fariinta uu helo linkigaas haddii cid dambe ay hesho aanay wax faa'iido ah u tarayn marka website-ka ayaan soo gelinaa farsamada noo fududeynaya website-kan ayaa magaciisa waxa la yiraahdaa pastbin marka browser-ka ku soo qorto haddii aad google ku soo qorto qaybtan ayuu kula soo gelayaa click ayaa siinaysaa daaqadan marka uu ku keeno marka new paste ay ku qoran tahay waxaad halkan ku diyaarinaysaa fariinta aad doonaysid in qofka la gaarsiiyo ayaad bartan ku diyaarinaysaa new paste ay ku qoran tahay marka qoraal alaala qoraalka u baahan tahay inaad qofka u dirto ayaad halka gelinaysaa marka waxaad leedahay assalaamu calaykum waa Ibrahim oo kale ayaad leedahay marka passwordkii computerka oo kale ayaad dahaysaa passwordkii computerku waa Somali 99 marka qoraalka marka qofka u dirto fariinta aad doonaysid in qofka akhristo hoos ayaad u soo raacaysaa waxaad raadinaysaa meel ay ku qoran tahay halkan paste expiration never marka ayaad bartan never badhankana ku qoran tahay waxaad ka dhigaysaa burn after read waxaad gubtaaba marka la akhriyo kadib mar haddii linkiga fariinta aan soo raaciyay qofku akhristo wixii ka dambeeya hawada ka baxo taa ayaad dooranaysaa wax kala dooran maysid hoos ayaad soo raacaysaa waxaad leedahay marka create new paste marka pastigan aan sameeyay linkigan la koobiyeynayo ayaad hadda sameynaysaa click ayaan leeyahay daaqad kale ayuu noo soo gudbinaya marka waa kan daaqada marka halkan ayaad ku koobiyeynaysaa copy paste link to clipboard tan aad koobiyeysid qofka u diraysaa haddaad doonayso fariintooda tan halkaas aad ku dhufanaysaa marka qofka ayaan doonayaa marka inaan linkiga u diro copy ayaan ka qaadanayaa halka sidaad u aragtaan paste bin wuxuu leeyahay copied waa la copy gareeyay marka haddaba maxaa dhacaya qofku marka uu fariintan linkigan aanu diro marka uu paste ku sameeyo aynu daaqad cusub furano aynu halkan ku dhahno paste enter ando marka sidaad aragtaan daaqadan ayuu hadda igu soo tuuray linkigan marka fariintii qofku ku soo diray marka siina linkigan ku soo diray akhrisato website-kan ku keeno hadda isaa okay haddaba show me the paste wixii marka aan paste gareyn lahayd oo qofkiisu copyay waa ku dhufanaysaa marka aad hal mar click siiso waxaad aragtaan bartan waxa ka soo baxday sida wada aragtaan warqadda halkan waxa ka soo baxday qoraalka marka hore soo galay assalaamu calaykum waa Ibrahim passwordkii computerku waa Somali 99 marka mar labaad ma akhriyi karaa marka maadaama aynu yiri haddii qof mar fariinta akhristo mar labaad aynu copy ku sameeyno mar labaad paste daaqad kale cusub soo fur halkan waxaad ku dhahdaa paste marka ku dhahdo linkigi markuu soo yahay enter de waxa dhacaya marka hadeer maadaama la akhrisay halkan waad aragtaan not found lama helin this page is no longer available hadda available maaha it has either expired way dhacday been removed by its creator waxa remove ku sameeyay oo meesha ka saaray qofkii marka hore sameeyay oo removed by one of the past bin staff ama qofkii marka hore ka shaqeynayay past bin ka sameeyay ayaa ka saaray marka farsamadan cusub waxaad kula wadaagi kartaa qof aad doonaysid in wada hadal iyo shaqo gaar ah ka dhaxayso fariin ayaad linkigan ugu diraysaa mar hadduu linkiga copy ka qaato oo paste dhaho aad u dirto oo akhristo mar xitaa isaga aad u dirtay mar labaad hadduu isku dayo inuu akhriyo uma shaqeynayso ilaa aad adigu mar kale aad u soo samayso marka muuqaalkan inta ayuu casharkan ayuu ku saabsanaa muuqaalka xigeentas kaga imanayno waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh